anigu caruur curdinaanaho ciladaha dunida cilmi uma lihiye adigoon canaan cadhaygula dhicin bali caawiyo cirsigaadan cududka rabaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta, dhiirigelinta waalidiinta iyo weliba dhacdooyinka ka dhaca dunida daafaheeda ee caruurta ku saabsan. aad baad ugu mahadsan tahay. haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad daawanayso, waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo biirto barbaarsama channel. daawashadaadana waad ku mahadsan tahay. haddii aad hore daawadayaasha uga mid ahayd oonad weli subscribe saarinna, waxaan ku farxi lahaa inaad subscribe saarto. haddii aad subscribe saartay ood bahda barbaarsama channel ka mid tahayna, waxaa dhiirigelin ii noqon lahayd ama ii ah haddii aad sheer garayn lahayd, like-na saari lahayd. aad baa u mahadsantihiin. markan iyo mowduuca aan idiin soo qaadayo ama aan doonayo inaan soo qaadano, waxa weeyaan mowduuc isaga laftarkiisu ah mowduucyada xaggiina ka yimaada. waxaan awoodda saarayaa iminka inta ugu badan inaan commentkiina kasoo jawaabo. sidaan idiin sheegay, aan commentka waalidiyada kasoo sameeyo barnaamijyada inta ugu badan. soo qor haddii aad doonayso mowduuc si looga soo hadlo ama halkan aynu uga soo faahfaahino. sidoo kale snapchat ayaad kusoo diri kartaa barbaarsama channel. waxaa kale oo aad kusoo diri kartaa tiktok-ga arnasra aragsan. markaas iminka iyo mowduucana wuxuu ka mid yahay su-aalihii ay soo weydiiseen. waxaanu noqonayaa sidee ayaan caruurtayda xilliga hurdada ee fiidkii u seexiyaa. caruurtayga ma seexdaan. caruurtaadu ma kugu soo noqnoqdaan markaad ku tiraahdaa seexda? ma ku soo marmarsoodaan waxyaabo yaryar? waan gaajoonayaa, biyaan cabbaan rabaa, inaan suuliga galaan rabaa. ma geysaa sariirta oo wixii oo dhan ma sameeyaanoo haddana ma geysaa sariirta? ma kugu soo noqdaan mar kale iyagii haddana inaan wax kuu sheegaan rabaa, su-aal kale iyo howl kale soo bilaabay? haddii haddaba ay hawshaasi iyo dhibtaasi ku haysato oo doonaysa inay caruurtu si fiican kaaga seexdaan ama ay kaa seexdaan xilliga aad adigu rabto, waxaan ku siinayaa qodobo yaryar oo kaa caawin karaa ina aad caruurta si fiican kaaga seexdaan ama aydaan isla dhib mudanin xilliga aad doonaysa inay seexdaan. ta koobaad waa inaad adigu waalid ahaan samayso jadwal ama xilli go-an oo reerkaaga ay leeyahay oo caruurtaadu ay seexdaan. xilligaas jadwalkaasi go-an waa in aaladaha la daawado kulligood xilligaad ugu tala gashay in la seexdo badh ka hor ama saacad ka hor lasii wada baktiyo ama aad sii wada baktiiso. badhkaasi waxau noqonayaa intaad ku cadayanaysaan ugu diyaar dharkii lagu seexanay ku xidhanaysaan ee ugu diyaar garoobaysaan ina sariirta la tago. marka ta ugu muhiimsan waxa weeyaan inaad samaysato waqti go-an. haddii aad samaysato waqti go-an, tusaale ahaan 8 habeennimo, aad caruurtaada wiig tijaabiso inaad wiig hal usbuuc maalin walba xilligaa habeen walba xilligaas uu kaa seexdo oo aad seexiso sariirta geyso. usbuuca dambe waxaad arkaysaa xilligii uu la qabsaday isagoo ilmuhu isagu raba inuu jiifsado. laakiin haddaad adigu maalin aad hawl iska qabsanayso 8 seexiso, maalinta kale hawl kale iska wadato ama qof la sheekaysanayso 9 seexiso, maalin 7 seexiso, waxaa khalkhalaya jawigii ama jadwalkii ilmaha ee hurdada ayaa khalkhalaya. isma garanayo inuu hurdo rabiyo in kale, waayo hurdadiiba ku caansiirtay. sidaa darteed waxaa muhiim ah inaad samaysato waqti go-an si ilmahaagu waqtigaas go-an ugu seexdo. qodobka labaad
waxaa jira waalidiin badan oo ilmahooda ugu hanjaba in haddii waxa uu qaban waayo ay seexinayaan. tusaale ahaan, haddaad cuntada cuni weydo waan ku seexinaya, haddaad halkaa fadhiisan weydo waan ku seexinaya. caruurtaasi ama waalidkas noocaas oo kale ahay haysto hurdada gebigeediiba waxay u arkeen wax laysku ciqaabo, marka hurdadiiba way naceen, ma rabaan inay seexdaan. ka ilaali inaad caruurtaada uga dhigto inaad hurdadu tahay wax laysku ciqaabo. waxyaabo badan baa jiro waalidku si khalad u adeegsadaan, sida dhakhtarka, hurdada, iskuulka iyo waxyaabo badan oo ay caruurta ku cabsi geliyaan, taasoo ay caruurtu aad iyo aad u nacaan waxaas lagu cabsi geliyo. waxaad arkaysaa waalid mar walba odhanaya haddaad seexan weydo, haddaad waxaa qaban weydo dhakhtarkan ku geynaya. maalintuu ilmuhu xanuusto dhakhtarkii wax ciqaabu u arkaa oo maxay irbad ku mudaya, uma arkaya dhakhtarkiiba meel caawima taalo. ka ilaali inaad caruurtaada waxyaabaha muhiimka hurdadu ka mid tahay aad uga dhigto ciqaab ama ku cabsi geliso. ilmahaaga uga sheekee faa'iidooyinka ay leedahay hurdadu. u sheeg in hurdada ay u fiican tahay jirkiisa, inay caafimaad ahaan isaga u fiican tahay, waad ku weynaanaysaa. caruurtu aad bay u jecel yihiin inay weynaadaan. hurdadu inay ka mid tahay waxyaabaha lagu weynaado, inuu energy ka helayo. hadduu si fiican imika u seexan waayo inuu berri oo dhan aanu ciyaari karahayn, inuu daalayo oo uu ooyo, madax xanuun uu qabanayo. waxaasoo dhan uga sheekee caruurtaada iyo faa'iidada ay hurdadu leedahay, laakiin ka jooji inaad uga dhigto ciqaab ood ku cabsi geliso. ta kale oo ugu muhiimsan, qodobka kale ee ugu muhiimsan had iyo jeerna waalidiintu sameeyaan, dhibaato badanna keena, waxa weeyaan waalidkii isagaiyo qolka fadhiga fadhiya ama kijada ku jiro howl qabanaya ayuu wuxuu leeyahay caruurtii orda seexda. waxaa laga yaabaa waalidkaasi inuu cid la fadhiyo oo uu la sheekaysanayo, kadibna uu caruurtii kolba ku odhanayo seexda, kaca oo seexda. caruurtu way kacayaan, waayo waalidkii way ka cabsanayaan. markuu ku idhahdo kac oo seexo way tegayaan qolkii, laakiin way kugu soo noqonayaan ilaa caawa. kolba marmarsiyay soo samaynayaan. waxaa laga yaabaa in waalidkii wax daawanayo oo isagoo filin u socdo daawanaya uu caruurtii ku odhanayo orda seexda. caruur og in halkan tv ka shidan yahay oo waalidkooda wax daawanayaan kaama seexanayaan, way kugu soo noqnoqonayaan ilaa caawa. kolba marmarsiyo ilaa neerfuhu kugu kaco, marka amaad ku xanaaqdo dee ama aad dishaba dee ama waxun samayso. xilliga waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan xilligaa caruurtu seexanayso, markaad waqti gaar go-an u samayso, hurdadana aanad uga dhigin inay wax ciqaabo tahay. ta saddexaada muhiimka ah aad samaynaysaa waxa weeyaan in xilligaa caruurtaadu seexanayso aad waxaad hayso oo dhan faraha ka qaado, aad hadhow ku soo noqoto, gadaal u dhigato, ama marka hore intaana xilligii seexashada gaadhin iska qabato wixii aad qabanaysay. xilligaas caruurtu waxay jecel yihiin in lala hadlo. markay sariirta tagaan wax badan oo dareenkooda ku saabsan ayay ka hadlaan. waxay sheegaan wixii maanta ay soo arkeen oo dhan, wixii ku dhacay oo dhan. waxay ka hadlaan tabashooyinkooda iyo dareenkooda. haddii markaa aad adiga tv daawanayso, waxaasoo dhan way ku seegayaan inaad ogaato ilmahaaga dareenkiisii. markaa iska dhaaf waxaad gacanta ku hayso oo dhan. waqtisii inta hurdada ka hor waxaa laga yaabaa hadday ugu badato waa 10 mirir, 15 mirir. markaas oo ilmihii wuxuu rabay sheego uu gam-ayaa. haddii aanu gam-ina habeen wanaagsan si niyad ah la isku macasalaameeyey kuguma soo kackacaayo, waayo wixii uu ku fikirayey maalmahan oo dhan maskaxdiisa ka buuxay ama uu dareemayey, waxaaba laga yaabaa inaad arrimo badan oo ilmahaagu la kulmay oo ay tahay inaad wax ka qabato xilligaasoo kale fiidkii ogaato. marka ha misgaraynin xilligaas ama ha seegin xilligaa. waa xilli muhiim ah. waxaad gacanta ku haysa iska dhig. haddaad wax daawanayso usoo noqo. haddaad life ku jirto ka bax. iminka life baa jiro oo had iyo jeer lagu mashquulsan yahay. haddii aad life ku jirto ka bax. haddii aad hawl guriga ka haysay usoo noqo ama marka hore iska sii dhammee. laakiin waqtigaas caruurtu seexanayaan ugu yaraan 30 mirir ugu talagal inaad iyaga siiso waqtigaas. waxaan rajeynayaa qodobadan inay ku caawin doonaan
insha allah haddii aad sida saxda ahi tahay u tijaabiso qaar kalena waynu kasoo hadli doonaa insha allah oo siduu ilmuhu si fiican xilli hore kaaga seexan lahaa ah. commentka kusoo qora su-aalaha aa haysaan. waxaan idinkaga tegayaa tan iyo muuqaal dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. like-ta iyo sheerta ha ilaabina, subscribe-ta saara. sidaa iyo